waxaa maanta soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar mas'uuliyiin ka socday shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel oo kormeero hawlo shaqo ku soo maray magaalooyinka Caynaba iyo Laascaanood uu hogaaminayay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Somtel Cabdinaasir Awasuubiye wuxuuna shir jiraad ku qabtay xafiiska shirkadda Somtel ee magaalada Caynaba isagoo ka warbixiyay ujeedooyinka socdaalkiisa horumarka ay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ka gaadhay dhinaca isgaarsiinta iyo weliba adeegyo cusub oo shirkaddan u soo kordhisay bulshada Soomaaliland iyo weliba macaamiisheeda ay ka mid yihiin isku xidh ay shirkaddan markii ugu horeysay la sameysay gooblaha waana kan mas'uulku isagoo arrintaasi ka hadlaya anigoo halka ka salaamaya dhammaan macaamiisha shirkadda Somtel kuna hadlaya magaca xiriirka dadweynaha anoo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Somtel waxaan runtii horta wadnay degdegin aan ku wadnay hawlaha shirkadda iyadoo aanu dhawaan insha Allah aan ka furnay xarunta magaalada Hargeysa aan ugu siinay xarunta booliska adeega 99 ama 39 saanu ummadda ugu sheegno adeegyada iyo heshiisyada aan laga gaabay Google-ka saan ugu sheegno oo mashruuca u dhiirigelino isla markaana isku wareysano hawlaha shirkadda iyo xiriirka dadweynaha ay horta hawlahaas u soconay dhanka inaan ku qaadno xiriirka gobolada bariga oo aan joogno maanta xarunta Caynaba magaalada madaxdeeda gobolka Caynaba runtii waxaan oran karaa shirkadda Somtel maanta halka ay marayso iyadoo shaqeynaysa muddo gaaraysa laba sano oo la furay sanadkii 2010 bishii March maantana ay marna 2012 bishii March runtii waxaan oran karaa shacabku jawaabteedii ahayd inaanu ka xaqabtirno dhanka baahida jirta dhanka telecommunication runtii way ka soo jawaabeen Somtel oo ka farcantay shirkadaha isku yiraahdo Habshiil Group waxay ku guuleysatay inay wadanka keento systemka loo yaqaan wireless systemkaas oo runtii kor u qaaday bilicda magaalooyinka waaweyn wada aragtay imika xarkaha ama dhibaatada haysata dabaqyadeena ama fuuqeena ku quruxda badan wax weyn waa xarkaha telefoonada saan taa uga hortagno runtii waxaan kor u qaadnay bilicda magaalada ka fikirna kor u qaadista bilicda magaalada inaan ummadeeda u keeno shacabkeeda u keeno system wireless ah oo meeshii doonaan ku isticmaal karaan runtii Somtel waxay ku caan baxday inay ummadda u shaqeyso ayna ka shaqeysan runtii taasina waa calaamad maanta meel walba dunida joogtidba aad kula xiriirsid dadkaaga si aad muuqaal ah isku argaysid saaxiibka walaalka familkiina qoyskiina waxaan kaloo maanta barta ka cadeynaya shirkadda Somtel waxay heshiis sokeeyo la gashay shirkadda caalamiga ee Google سويت قانون أدية بدل أو SMS to Google أو كلا أدية أو شركة جوجل رئيس وضعك هشيس لك شاء Google كم شركة عالمية شعب كله فايدة سو أدية عصرية عالمية ما تدوني بكوحنا قاطي سيدا SMS to Google كلا asikastoo haataba kormeerkan ay mas'uuliyiintu ku soo gaareen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa waxa uu ku soo boodlayaa xilli ay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ay ka gaadhay horumar weyn dhinacyada adeegyada bulshada taakulaynta dadka tabaalaysan iyo weliba maqalka xiriirka telefoonada mana aha markii ugu horeysay ee ay kormeer noocan oo kale ah ku soo gaareen magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Caynaba